Soomaaliya maanta ayay ugu wanaagsan tahay baan u maleynaynaa ugu nasiib wanaagsan international community-guna inteeda badan ka sii jeeday inay soo jeesatay baan noo muuqata saansaanyadaasina waxa keenay sumuudka ayaa keenay ummadda dhibaataysan ee ku adkaysanaysa inay ka baxdo meeshaas godka inay ka baxdo oo karaamadeedii iyo sharafteedii iyo dalkeedii iyo midnimadeedii intaba ay soo ceshato ama dardaaran aan ka dhigaa mise canaan baan ka dhigaa mise waxaan ka dhigaa ma garanaysaa ay gubaabo ayaan ka dhigaa waxa muuqda oo idinkuba aad wada garanaysaan gebigiin in qabiil iyo qaran meel ayna wada joogsan karin dadaalkeennu waxa weeyaan maxaa la yidhahaa dusha inaan ka ilaalino in aan soomaalida wixii aan ku odhanayna ku nidha waxa ayna weydiiyaan ay nagu yacni noo tilmaamaan ay wax ka khariban yihiin inay noo tilmaamaan oo sheegno wey shalay waan sheegay shalay wasiirku haddeer buu ii sheegayey waxaan idhi Soomaaliya maanta waxay doonaysaa wixii ballan loo qaaday waxaa la yidhi $3 bilyan oo dollar baa la idin siiyaa la yidhi awe nin arkay madlidii markaa dee waddanka inta la dhisayo xoolaa lagu dhisaa United Nations wixii ay xafiis lahayd oo dhan Nairobi bay iskala fadhiisay xitaa hawadii meesha laga maamulayay waxa laga dhigay Nairobi dee sidee buu dalku uu lugihiisa iskugu taagayaa haddii aanan maaliyadeedii iyo maskaxdeedii iyo dadaalkeedii aanan la nala gelin ma suuroobi